madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo kormeerka kuurgalow ka habsama socdowga howlo shaqo ee garoonka diyaarado degmada Buur-Hakaba ka saadi garoonka diyaarado magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay oo dhisoo Jamil Fayl Marahaya madaxweyne Laftagareen iyo kormeer kureet ma isu warbixin shal duwan uu ku dhugunsaday injineerada dhisaha garoonka diyaarado iyo dadka deegaanka oo su'aal ku weydiiyay dadaaladii oo ka jaran adeegyada isxilqaan iyo ku wadan degmada Buur-Hakaba oo laga guuleysaday intii hata la dhamay geed jarowka isla markaasna makiinooyinka iyo wadan jimaayo ko dhulka qaar ka mid ah xildhibaanada ku tirsan baarlamaanka dowladda koonfur galbeed ee deegaan doorashadii oo yeetay degmada Buur-Hakaba mayo tilmaamina anti kan reer haan iyo walbadan ku tara doonaan sidii qaraan iyo ka soo biil lahaayeen silindar dargeli dhisowka garoonka diyaarado degmada ilaa ka diiban fantan kulska faan waaye helad musheegdan reerayni inta la iska fawaa baa saddex sano ka diibay ballan qaadim anu muudna jado ana hilbaanka koonfur galbeed ana wasiir kuna boosay isgaarsiinta dowlad mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen iyo qaybo shal duwan bulshada iyo siyaasiyiinta ku jeeda degmada Buur-Hakaba oo ku mahadnaqay dadaaladii ugu qaadayaan dardargelinta dhismaha garoonka diyaarado magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay maydinaga kala dowladda federaalka saaxiibada Soomaaliya uusan ka baaqay anti kaalantii oo ku jeysadan dhismaha garoonka oo baaha badan iyo qaban bulshada ka nool magaalada Buur-Hakaba ee gobolka Bay waxaana sugeynaa dhamaystirkiis inaan ayadana xilliga ugu dhaqsaha badan maalin oo maalmaha kamid Ilaahay aduuna gaarsiiyo insha Allah airport Buur-Hakaba la furaaya inaan u imaan doono insha Allah runtii waxaan u mahad celinayaa dadka siyaasiyiinta iyo mas'uuliyiinta iyo madaxda inta ka hadashay oo sameysay isku tashi bini aadanka waxa ugu fiican waxa waaye isku tashiga markuu dadka isku tashtaan oo baahidooda ay isu xilqaamaan oo maxay ahayd dareenkooda iyo qalbi wanaagooda ay muujiyaan markaas waxa la yiraahdaa nin guntan baa loo gargaaraa marka isku tashiga ay suubiyeen iyo qaaraankii ay bilaabeen aad ay ugu mahadsan yihiin annaga oo dowladda koonfur galbeed ahna waxaan ballan qaadaynaa inaan wixii kala haro aan dhamaystirno sidaas oo kale waxaan codsanaynaa dowladaha iyo ugu horeysa dowladda federaalka doonarka iyo deeq bixiyaalka inay ayagana meeshan ay kaalmadooda ay ka geystaan qaybtooda si ay u helaan shacabkan tirada badan iyo tuulooyinkan badan ay u helaan airport dhawaan yahay markii madaxweynaha dowladda koonfur galbeed mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed Laftagareen uu soo sheegay garoonka oo dhisoo Jamil Fayl Marahayta maynu soo tilmaamay anti dowladda koonfur galbeed oo kaaladaas dowladda federaalka saaxiibada Soomaaliya iyo bulshada ka nool degmada Buur-Hakaba ku go'onta anti la hirgeli garoon diyaaradeed oo la dhisay degmada Buur-Hakaba ee gobolka Bay Faisal Maxamed Isa TV-ga iyo raadiyaha koonfur galbeed degmada Buur-Hakaba gobolka Bay